heshiiskayagu wuxuu ahaa qof islaama oo aan waxgeysan inaan la dilin kii wax dilayna meel uu galaba inaanan ka harin cir iyo dhul meel uu galaba waa heli karnaa mana waayayno laakiin qof aan waxgeysan inaan loogu aarin qof baan ku heshiin heshiiskayagu saas u ahaa ilaah baa nala ogaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu xaq weeye allah subhanahu wa ta'ala baa qadaray sakariyana ma dhaafeen xilligan annagu ehel ahaan waxaan leenahay dhibaato dhacday ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ina ka dhacday waa samaawi insaan ba hageysto laakiin waxaan codsanaynaa ka ehel ahaan khamiistii hadda soo la dhaweyd iyo khamiistii ku horeysayba waxa dhacay laba shir oo looga hadayay barnaamijkan khamiistii hore qoys ahaan qoyska sakariye waxa ay saxiixeen dhammaan eheladii joogtay oo ahayd maxaan ku iraahdaa waa jifada Cumar Maxamuud weeye jifada Cumar Maxamuud waa halkan joogta maadaama reer gaalkacyadoo dhan ay joogaan gaar ahaan jifada Cumar Maxamuud waxay khamiistii la soo dhaafay tii ku horeysay ay saxiixeen wax kasta oo soo mara oo ku saabsan qatliga shariicada islaamka inay waafajiyaan markii aan qaadanay taas khamiistii labaadna gobolka oo dhan waxay guud ahaan isla qaateen sidoo kale iyagoo ismadii gobolka oo dhan ay joogeen in ay qaataan qisaasta iyo diyada labadaba inay shariicada waafajiyaan qofkii qof laga dilo in loo soo qabto sidoo shariicada ka yeelayna uu madax bannaan yahay labada qoloba waxay ku ballameen Soomaali weyn iyo qoys ahaan qoyska Cumar Maxamuudba in labadii khamiisood la soo dhaafay labada arrimood ay wada qaateen oo wada gacan taageen tani waa imtixaankii u horeeyay waxaan codsanaynaa arrintaas maxaan ku iraahdaa labada khamiisood la soo qabtay 2 sano iyo dhowr bilood bay nagu qaadatay anaga ka qoys ahaan inaan halkaas soo gaarsiino sida loogu wada qanco loo wada saxiixo ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inuu ku imtixaamaya waa qaadanay waxaan codsanaynaa dhibaatada dhacday sidii loogu ballamay in aan la dilin heshiiskayagu wuxuu ahaa qof islaama oo aan waxgeysan inaan la dilin kii wax dilayna meel uu galaba inaanan ka harin cir iyo dhul meel uu galaba waa heli karnaa mana waayayno laakiin qof aan waxgeysan inaan loogu aarin qof baan ku heshiin heshiiskayagu saas u ahaa ilaah baa nala ogaa meesha ay maanta joogto ka ehel ahaan inaan meesha la dhaafin qaatilkiina waa helaynaa dadka ehelka oo qaatilku ka soo jeedana waa dadkii khamiistii dhaweyd inala qaatay oo inala ogaa wayna ku maqan yihiin waxaan codsanaynaa ilaahay baan waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay inoo soo fududeeyo ilaahay baan waxaan weydiisanaynaa imtixaanka inuu inoo fududeeyo ilaahay baan waxaan weydiisanaynaa si fudud oo yasiran inuu alla inoo ku keeno waxaan codsanaynaa in la ilaaliyo isagana Allah u dambi dhaaf